السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي أمير البوتشوكتان وحندير رجينا خير بدن عافيماد نبت قليو الله إذن حفتي دمانتينا ولا لهي قان شعلها يسود واذا ومركلة يعني جيو صول لابطي ولا شين فاطمة فيلسن خير بدن إذن رجينا ما توحانو هيا oo idinka sheekayn rabaa oo rabaa inaan idinka sheekeeyo sheeko bakayl dabcan bakayl markii la dhahayo bakaylnimada ma aha ragga bas inay bakayl yihiin laakiin bakayl waxa ay qof kasta oo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado bakaylnimada waa lagu kala duwan yahay qofku waxbuu ku bakaylaa dadku saddex bay sidoodaba u qaybsamaan qof deeqsi ah iyo qof maxaa la dhihi jiray bakayl ah iyo qof isagu bakaylna aan ahayn deeqsina aan ahayne in isaga wax la weydiista ma ogi aan waxba bixinin taasi waa garasho waxaa la dhahaa hebel garasho ma lehe garaacashuu leeyahay dhaan dadku micnaha qofkaas isaga waxaan hoo kuma dhahaayo laakiin haddii adiga aad weydiisatid waxaad weydiisata kama weynaysid wuu ku siinaa wuxuu kuu awoodo wuu ku siinaa wuxuuna haynee de maba haayo soo ma ahan marka dadka saddexaas u qaybsamaan baa la dhahaa inta kalena ha lagu soo daro anigu kolley intaan maqlay weeye intaana maqlin ee kalaa badan marka waxaan idinka sheegnay heerkan family sheekada waxay ka bilaabanaysaa familkaas waxay ahaayeen famil taajiriin ah heer taajir ayay ahaayeen oo ninkaas oo reer kale wuxuu ahaa nin lacag leh oo taajir oo magaalada magac kule ayuu ahaa laakiin dhibka jira waxaa waaye noloshooda waxay ahayd nolosha faqiirka camal ay ahayd nolosha iyaga ku nool yihiin sida faqiiriinta camal ay u noolaan jirin sida qof aan waxba haysan camal oo kale ninka sababtoo ah waxaa la dhahay ninka markuu wax soo gadaayo ilmaha dharka oo wuxuu usoo gadayaa maxaa la dhihi jiray oo raqiiska kuwa ugu raqiisan usoo gadayaa waa dee shilin igama baxo waxaa li wax kasta bakaylnimada lambar 1 dadka markay islaantiisa hadasho ama ilmaha waxaa dhahan xulay waa haysatiine maxaa idan hayo isagana magaalada ninka ugu lacagta badan ugu magaca dheer waa marka waxaa la dhahay isaga xataa gaari ma raaco wuu lugeeyaa magaalada meeshuu u baahdo lugtiisuu ku aadaa dantuu leeyahay kasoo dhammaystaa uu iskaga imaadaa ilmahan lacag baan leenahay iyo gaadhiyaa la idin saaraa iyo gaadhiyaa la idin gadaayaa iyo waxaas ma jirto iskuulka lugta ku aada waa ka imaada dugsiga ku aada ka imaada dantiidna raaca oo cad weeye deedna waxaa leeyahay adiga maalintii dambe ninka marka waxaa leeyahay dhaqan waxaa u ahaydaa hilibka marka waxaa la soo gadaayo hilib ma soo gadi jirin aa dheh soo gadi jiray baa layidhi calooleyda iyo madaxa iyo usoo gadi jiraa lisaandaas wuxuu leeyahay calooshaa haysataa madaxiyaa haysa meesha u koraysa caloosha aheedaa haysataa dhexdiyaa haysataa maxaa la dhihi jiray caloosha minjihii maxaa kaa maqan na cuntadaada karsoo reerka joog carabtana sida soomaalidoo kale ma ahaan soomaalida waxaa laga yaaba hal cunto intaa karsano inaa halka cunto layska wada cuno laakiin iyaga cunto waxay karsadaan oo cuntooyin badanaa meesha lasoo dhigdhigaa micnaha cunto badanaa la karinaa dad oo waxaa carabta waxaa waaye dadka cuntada zaa'idka uga dambeeyo sida soomaalidoo kale annaga u dhaqanoo kale ma ahan dadka aad cuntada uga dambeeyo waa marka waxaa leey adiga intoodii iska bismillaahiyeystaan islaanta waa iskala qabsatay ninkii markuu albaabka qow soo siiyo waxay leedahay bismillah weligii unba calool iyo madax xambaarsan yahay ila wax kaloo faa'iido lama keena ay taagantahay maalintii dambe waxaa la aduu ninkii masaajid isagoo ku tukanaya nin saaxiibkiisa wuxuu dhahay nin saaxiibka ee casuumee maxaa la dhihi jiray kaale i raac wuxuu i dhahay ciddii kusoo raaci kartaa kusoo raacday deedna hayuu dhahayo waxaa lagu raacay bahal guriga wuxuu tegay dee bismillaahi raxmaani raxiim khatar laga dhigay gurigo nalkii ilmaha ku kantaroori jiray damiya uu dhihi jiray ma jira waxaan ku meel kasta nal baa ka shidan yaab waxaa la yidhi guriga fadhiga kala noocnooca alaabta waxa cuntadii markii la keenay ka daran shubu iska dheh ninkii guriga lahaa uu jaanis ku gaaday uu xalay maru usoo dhawaaday uu helay wuxuu dhahay saaxiibow waxaan ku weydiinaa xoolahan ma adigaa shaqaystay markaasuu yidhi maya ma shaqaysanin markaasuu marka ma adigaa familkaaga aabbahaa miyaa kaaga dhintay oo dhaxalma u heshay xoolahan markaasuu maya suu yidhi hee xageed ka keentay suu yidhi anigu horta wuxuu yidhi anigu xoolahan ma shaqaysanin heerkanagana kama keenin
laakiin wuxuu yidhi ninkii hebel la dhihi jiray mataqaanaa uu dhahay oo taajirka asaa isaas haayuu dhahay ninkaas markuu dhintay xaaskiisa ayaan guursaday ninkaa kaloo hebel la dhahaan xaaskiisa ayaan guursaday xoolahan marka wuxuu dhahay maadaama iyaga ay niman hantila ahaayeen xoolahan xoolahaas waayuu dhahay aniga xoolihii unbaa madaxweyne ka noqday laakiin waxaa aniga soo shaqaystay oo kale ma ahayn u dheh laakiin hadda waxaa igu maqaalo uhuu dheh magaaladan aan joogno ninka ugu taajirsan in magaciisa hebel la dhaho haye ninka marka wuxuu yidhi haddii buu yidhi ninkii u sheekaynaya ogoyaa waa ninkii guriga lahaa waxa sheekaynaayo kii oo taajirka oo bakhaylka ahaana waa qofkan ka warguraaya ee warka sugaya markuu wuxuu yidhi haddii mawdku wuxuu yidhi uu iiga soo horeeya isaga oo isagu dhinto waxaan ku tala jiraayuu dhahay inuu xaaskiisa aan aniga guursado xaaskiisa markuu isaga dhinto inaan aniga guursado sababtoo wuxuu dhahay waa ninka magaaladan ugu taajirsanuu dhahay ninkaa taajirka ah haddii lacalla uu dhinto xaaskiisa anaa ku tashanayuu dhahay naxdin ninka shabu iska yidhi ninka lagu tashanayaba isagoo nool xoolihiisa iyo reerkiisa loo baxbaxsanaayo waa isaga ninkaas waa aniga maba uusan dhihina shabu iska dhahaala uu iska soo baxay nin caqli badanuu horta ahaa sababtoo bakhayl ha ahaadee laakiin caqliguu isticmaalo wuxuu yidhi niyow xoolaha horta laba jeeri waa ka dhimanaya laakiin wuxuu yidhi xoolahaagii haddii wuxuu yidhi heerkaagii aa u diidanayd iyo carruurtaadii xoolahaagii la cunsiiyuu dhahay adigana qabriga lagugu soo habaaro waa dhibaato kaluu yidhi maxaa wuxuu yidhi horta waqtigaa la iila sugibiyo hadda maan bilaabo iyaga siiyuu dhah ha ka dhargaanu dhahay hadda ha ka dhargaan markaan dhinto wixii meesha loogu imaado ciil uma qabo wallahi ninkaasi caqliguu qabeeyaa hadduuba saa dhaqso u fakeray caqliguu qabe waxaa la dhahay ninkii buu soo baxaye markuu soo baxay horta tagsiuu qaadan jirinuu qaatay harbaba magaaladiiuu tegey waxaa la yidhi alaab daldalo islaantii xalay maxaa dahaba maxaa alaaba maxaa dhara carruurtii raashinka adu waxaa lay gaadhi buu soo buuxsaday heerkii wuxuu u keenin oo magaaladaa yaalla oo hilib dad ahayn ma jiraale wax kasta uu keenay liyo adugu meesha lagu gadaayo oo waxaa lay alaabey cuntooy dhareey wax kastuu soo gadan bahal gaadhiyuu kasoo buuxiyey gaadhigii waxaa lay bannaanka markuu istaajiyo qaylo afka furtay yaa xabiibatii albaabka fur iftaxi ilbaab halkaasuu la istaagay yaa qaylo daaba islaantii le odayga khayr miyuu ku ogeyn moogta markaasay tiri maxaa la qaylinay tiri calool iyo madax baa xambaarsan tahay calool iyo madax baad xambaarsan tahay waxaad la qaylin bay tiri sidii nin qumaraa u qayline albaabkii haddii la furayba oo gaadhi soo geliyo alaab daldalay heerkii waxay ku noqotay anfariir yaab way yaabeen shubu iska dhahay isagu haddee ma sheegin qisadii ku dhacday mar dambe ma ogi markii muuse u sheegay wuxuu yidhi alaabtiinan qaata oo carruurtanna waxaanay leeyihiin adi waxanaa leedahay alaabtan gurigaa iskale magaalada dhinaca ka galadee maanta laga bilaabuu dhahay madax iyo calool dambe ma jirto waxa idinka rabtiinaa soo gadanaysiinoo dha jooyiskiina baa waxaan ku idhaa kusoo isticmaalaysin waxaa rabtiin oo kusoo gadanaysin ama dhar soo gata ama cunto soo gata ama alaabiska bedela wixii xoolaa intaan noolahay waa ka dhargeysiin muxuu ka fekeray mataqaanaa ninkaasi wuxuu ka fekeray markuu dhinto intii xoolihiisa la siiyo hadda moogtahay ilmihii waxaan ilmo waaye qofkii u roon waxay isleeyihiin aabihiin adeerkiina ka fiican moogta islaantan waxay leedahay odaygii baasaay bakhaylka ah ilaahayaa ku dhaafiye nimcadan maba ay arki jirina isdhihi lahayd moogta marka isaga meeshii looga soo ducayn lahaa habaar leeba inkaaruu qabay lee lagu dhahaa marka intuu inkaarti ka baqaaya caqligooba isticmaalo ninkaasaa sabab ilaahay uga soo dhigay hadalkiisi yah asxaabay horta qisada halkaasay ku eg tahay sideedaba horta lexe jeclada waxa la dhaho waa wax cajiiba sideedana haddii xoolaha adiga aad leedahay oo adiga aad soo shaqaysatay iyo haddii lagu siiyo way kala duwan yihiin waxa adiga aad shaqaysatay uu ka kulul yahay waxa aada lahayn waxaa laga yaabaa wixii lagu siiyey inay lexe jeclo saasa kugu haynin sababtoo waxaa leedahay awalba ma haysan haddana waa lagu siiyey moogta laakiin wixii aad soo shaqaysay waqti ku bixisay iyo xoog ku bixisay way ka duwan yihiin waxa lagu siiyo soomaali waxay dhahaa
haddaad xoolahaaga cuni weydo waa laguu cuni sababta ma taqaanin haddaad ka dhimato si kastood xoolaha u ururiso haddaad ka dhimato qof aan lexe jeclo ka haynin oo isagu usoo dhididin oo usoo rafaadin oo dhib usoo dareemin intuu weliba cuno inta dambana haraati ku dhaafaa ka sheekee adigana waqtigaaga iyo xooggaaga xoolahaasaan kusoo bixisay marka ka faa'iidaysta qof kastooba intaad hayso horta adigu ka dherag ina xiro ina cun ina sadaqayso yaa saad rabta ka yeelo laakiin meel xun xoolaha iskaga bixinina asxaabteyda qaaliga khayr badan baa idiin rajaynayaa haddaad nagu cusubtahay subscribe-ta noo saar haddaad hore noola joogto waa mahadsan tahay like-ta dhac ku siiya aad baa idiin salaamaya aad baa idiin jeclahay khayr badan baa idiin rajaynaya walaalahayga qaaliga insha allah ilaahay mar kale annagoo nabad qabnaha isla soo keen kulmiyo